حدود هذا حاجة دي هذا اللي بتشيل كان بحال كان هنا وحكى كمذا حدود دي حاجة إنه حدودة مركل اللي راد بريجة مركل بدأ سكرف بريجة جيبوتي واتر سنة بريجة حاجة إنه حدودة سومالي كينيا سومالي توب كل واتر سنة إن اللي راد حدود ملهن كرنا صورة قلمة عيبان بحالنا وحكى كمذا حدود لما هو حدود دلكة لما هو waxa keenay iyada laftirkeeda in la yiraahdo dadka qaarida dhaxal dhalinyarada jiilka adigu baad ka mid tahay ma hubno yaa Soomaaliya ma hubno inay yiraahdeen صح يعني ستيت marka la leeyahay siyaasadda macna qof Soomaali macna reeraha Soomaaliyeed qabaylada ka dhashay oo Ethiopia oo kala ku dhashay ku soo koray baasaboorkeeda wata oo Ethiopian xagga xataa ka qaban kara ayaa inta ka qaban kara ay Kenya sidaas oo kale marka meesha sheegayso waa marka mar walba aan la qeexin anigu intaan baxo macna ano sidaan ah oo inta Ethiopia tago wax uma qaban karaan xilma qaban karaan adiga ma ka qaban karo ma yani sheekada oo anaga asalkiina reeraha qabiilada meesha aan sheegto oo baasaboor qaato oo wada dheer waa laakiin sida u fududahay ninka Soomaalida macna Soomaalida deegaanada kala joogta macna walaalaha ma diidan ee Soomaaliya la wadahay laakiin waxaan ka wadaa قف الصومالي قاعد وباين مرقول با ما قبيل با إلى هدايا في سؤال قبيل شيء كذا الصومالي ولا قيل على هذا هو يعني تصالح نينك صومالي تو بدقة أو قبائل الصوماليين معنا معنا قبيل كصومالي بكون قومية قيب كم ده أنت معنا سوى البقوم مقيه هاي باسبور وقبض أنت وكم ده كينيا سلا سكالة مرة دولة نمط صومالي هو قبيل هو قبيل هذا أوكي هدي كل يرادو حد أنت نوع حرن الصومالي كم مقعد دمن كلية الصومالي هذا ده نقول أكون مقعدنا أنا غيرها إنه ما حساب سنة مر ما أنا حكوا هذا أري جمهورية يحرين تاس واحد كلوا هذا ورق برجع ورق كمان شو كجرا بحالهان وحن بحالنا تشيل كان بحال كان قال لي تعرف السيدة أن نقول أما بحال كان هنا وإنه حدود لأن جرت ستيت قحتان كستيت كي أو لطينية صح وإن يا صوماليا عن ولي هاي waxaa laga yaabaa marka yaa Soomaaliya markii la yiraahdo kuwa inay su'aashaas u weydiinayaan inay saaraan cidda ka baxsan jamhuuriyaddii inta ka baxsan inay saaraan kuwa su'aashaas marka qaar waxay u leeyihiin jamhuuriyaddii kuwa ku jira xataa inay meesha ka saaraan bixiyaan ay u leeyihiin yaa Soomaaliya ay rabaan ay yiraahdaan jamhuuriyaddii inta ku dhex jirta dadka qaar waxa wadanka keenay siyaad barre gadaal waqti dhow bay yimaadeen kuwa Soomaali ma aha beelasa kaleena waa meel xanuun badan oo kuleyl badan oo dadku xataa waa kugu xanaaqay hadda muuqaalkan dad dhigeysaan dad badan baa kugu xanaaqi doonaya waxaas waxa uga hadlashay lama rabo in laga hadlo dhibaatada sii jirta dadkii ma rabaan in laga hadlo way ka sii daranta marka waxa aniga aan ka xanuunsado aadka i xanuujiyo waxa weeye inaanu cadayn حدودي حتى أنا لهين من حدود صحن أنا لهين وماشي دانك أنا مركز توحن حاجة وارد أنت وحن كدر سنة أركتير أنا ولا كدر سنة جمستيه نقيبي نكلا قيبي وما هتسيه صح أنا أركتيري دوا داركا وحيكون ما هتسيه هو يدا معك يعنق أورك كتيرة ولا كلا بدبات شامروك قار صح oo iyada markii ay cunuga waa la qalay isla markaa laga bixiyaa sax si loo kala badbaadiyo sida la isku maxbaali kare sax waana kala badbaadiyeen waxna u kala badbaadiyeen gumeystii markii baasaboorkii jamhuuriyaddu dhintay waxa lagu badbaaday baasaboorkii Djibouti waxa lagu badbaadiyay Ethiopia waxa lagu badbaaday Kenya hadda iga rumaysanaysid maanta Soomaaliya afar qof oo miis fadhida hadda jeebkooda gacanta gelisid mid waxa ka soo bixin doonta ama labo baasaboor wadamadaas ka soo bixinaysa Soomaalida inta iska tagaan oo dhex galaan ilaa Soomaaliya baasaboorka dhiiba waxa kala xusid mudan oo mahad celin ba u baahan ba aniga aan ka mahad celiyaaba Ismaaciil Cumar Gille Soomaalida jamhuuriyadda markay gaaraan oo qofka ganacsadaha lacagtiisa xoogaa 50,000 iyo wax gaarto baasaboor doonta adduunka kula macaamila haddii ka waran aan qaybsanaan lahayn islaam baqtineen masa aqli hadaan qaybsanaan aqliga oo ilaha meesh aqli lama hubo inaan aqliga oo ilahayn Ethiopia oo kaliya intaan isku duulna iyo midowga Soviyeeti iyo waxna dhaxmaray saas midowga Soviyeeti kala dawladda nagama dumin aqli aan kala jirtay oo anagu islaama joogneen waxana isku joog aqli isku joognaa meesha ma oolinin
marka meesha aan kale way maasintay qoladana qaybisay waxaan qabaa inayna kala badbaadiso irid macnaa irida idin furtay mustaqbalka ka badbaadi ha oo lagu badbaado caafimaadka reeraha qaar baa meel kale idin geeyay ha waxaan ku aadnaa ku ganacsanaa baasaboorada dalkaas ku ganacsan oo adduunka kula macaamilnaa si kale haddii aan niraahno si kale aan u dhahno dadka walaalahan waa dhibeen qaar oo waxa aad loo dhibaa jirta oo matalaadoodii ku dhiban matalaadkeena wadamada ka tirsan yihiin صح wax ka xumahay taa kuma farxsanayo malihi yani saas u qaybiyeen gumeystii saas u malihi wax ka xumahay aad wax ma waliba kilinka waxa ka dhacay xanuun badan ka dhacay waqti marka akhrisid waa ilmeynaysa adiga inay kugu dhacaysa ama leenaysa waa la xanuunsan waana ka xumahay صح sidaas ayadoo tahay يعني ayaga waxa asibtay dhibaatadii geeska Afrika ka jirtay iyagoo sidaas u gasho Afrikadu ma ogta waa quudata jirdilka waa quudata Afrikada iyo in qowmiyadaha dhibaatadan xuduudahan la isku furay oo xagga lagu daro qol xagga lagu darana kaligeena ma haysato dad badan bay haystaan wadamada badan bay haystaan Soomaaliya jamhuuriyaddu haddii ay ammaankeeda iyo dhaqaalaheeda hagaajin lahayd haddii dhaqaalaha ay hagaajin lahayd jamhuuriyadda ammaanka dhaqaalaha ay hagaajin lahayd qaybta Soomaalida ku jirta Ethiopia dhibay ku qabilayeen qaybta Kenya ku jirtana Kenya dhibay ku qabilayeen Djibouti-na waxay ahaan lahayd dal ku naalooda maxay ahaatay barwaaqo iyo awood iyo xaraga diblomaasiyadeed xaraga diblomaasiyadeed ku noolaan lahayd laakiin hadda maxaan haynaaba annaga waxba haynin